daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya yay yihiin shakhsiyaadka uu sheegay Cabdiraxmaan Cabshakuur inay ka soo horeeyaan farmaajo Cumar Cabdirashiid oo soo saaray digniin ku saabsan shirka teendhada Afasiyooni dowladda federaalka oo mushaarka ka jirtay ciidankii dhawaan ku biiray ilaalada Cabdiraxmaan Cabshakuur madaxweyne Xasan Sheekh oo faahfaahiyay shirqool lagu dili rabay maxaa laga fahmay arinta waare uu ka sheegay beelaha Hiiraan iyo Gado xubno aasayay miino oo lagu dilay howlgal qorsheysan 24 xubnood oo saacadihii ugu dambeeyay Daacish loogu dilay Soomaaliya iyo sidoo kale wararka nagu soo kordho ayaan daawadayaal soo qaadan doonaa haddii aynu ku bilowno siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur ayaa dhawaan sheegay in farmaajo isagoo aan afka kala qaadin ay jiraan rag ka soo horeeya oo u doodayay intii uu socday shirkii u dhaxeeyay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Afasiyooni Cabdiraxmaan ayaa sheegay in shakhsiyaadka ka soo horeeya farmaajo oo la fahamsan yahay in uu ula jeedo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada ay ku doodayaan isla markaana ay dhahayaan wax walba lama baahna in laga hadlo muddaxileed ka dhamaaday ee baarlamaanka iyo madaxweynaha maxaa looga baahan yahay in looga hadlo weerarkii habeenkii iyo subaxii 19 Febraayo dhacay lama baahno in midowga musharaxiinta iyo wakiilada Soomaaliyeed dood ay qabaan la dhageysto lama baahna in damaanad loo helo fulinta heshiiska wuxuu yiri taasi waxa ay ka dhigan tahay in la galo doorasho uu farmaajo musharaxiinta la tartamaysa weerari karo xildhibaanada uu diidan yahayna baarlamaanka ka xiran karo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Muqdisho si nabad ah aysan ku joogi karin waa qaarkaas ay ka soo horjeeday ayuu yiri siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo dhaliil xoogan u jeediyay madaxda dowlad goboleedyada farmaajo saaxiibka dowladda ah Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2022 Cumar Cabdirashiid ayaa marka hore soo hadal qaaday wadahadallada u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka socda magaalada Muqdisho gaar ahaan teendhada Afasiyooni kuwaas oo diiradda lagu saarayo ismariwaaga doorashada sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa ka digay fashil ku yimaada wadahadallada socda oo ah kuwa ugu dambeeya ee lagu dhameystirayo heshiiskii 17 Sebtembar haddii si dhab ah ay u wada hadlaan saamiilayda siyaasadda waxaa lagu gaari karaa doorasho lagu kalsoonaan karo waxyaabaha waaweyn ee ay wadaagayaan daneeyaasha waa in ay si faahfaahsan ugu wada hadlaan nidaamka gorgortanka ajandaha oo haddii dhexdhexaadintu guuldareysato ama farsamada dhinac kale oo loo wiciyaa la guuldareysan doodna aysan noqon ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee dalka hadalkan ayaa ku soo aadaya kadib hakad galay kulankii u socday madaxda dowlad goboleedyada sidoo kale madaxda dowladda federaalka iyadoo qofba uu sheegay in la tashi u soo sameynayo go'aan uusan gaari karin dowladda Soomaaliya ayaa bilowday inay cadaadis saarto askarta ka diiwaan gashan isla markaana ku maqan shaqada leexsan gaar ahaan kuwa ilaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame sida ay ogaatay warbaahinta mas'uuliyiin ka tirsan xisbigooda jir ee hogaamiye Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame taliska militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in loo sheegay in mushaarka laga joojiyo ciidan ku dhow 70 askari ciidanka lacagta laga joojiyay ayaa intooda ugu badan ilaalo ah musharax Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo badankood ay dhawaan ku biireen ilaaladiisa iyo Jenaraal Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaadin Dhacdo isna ku dhow mucaaradka Cabdiraxmaan Cabshakuur ayaa horey u lahaa ilaalo gaar ah oo aan ka tirsaneyn ciidanka dowladda Soomaaliya oo gaaraya ilaa 12 hase yeeshee kadib weerarkii dhacay 19 Febraayo ee lagu qaaday mucaaradka qaarkood ayaa waxaa ku biiray ilaalo ku beel ah qaarkoodna ka yimid dhanka Indhacade oo sidoo kale ay isku jufay yihiin ciidankan ayaa la sheegay inay xoojinayaan ilaalada Cabdiraxmaan iyaga oo ka cabsi qaba weerar ay mar kale ay ku qaado dowladda kadib weerarkii dhacay 3 sano ka hor ee ilaalada loogu dilay lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa arintan hase yeeshee waxaa soo baxaya warar sheegaya in qaar kale oo mucaaradka askarta la socota ah laga joojiyay mushaarkii ay qaadan jireen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay 19 Febraayo la qorsheeyay in la dilo isaga iyo madaxweynihii ka horeeyay Shariif Sheekh Axmed xilli ay ku sugnaayeen hotel ku dhex yaalo xildhibaanka madaxtooyada Soomaaliya Xasan Sheekh oo wareysigan dhinacyo badan taabanayay KNN ayaa si qoto dheer uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee dalka isaga oo dhaliisha ugu badan dusha ka saaray madaxweynaha muddadiisu dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxa uu sheegay in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ay bahdishay ciidanka qaranka oo kalsoonidii shacabka ay siiyeen luminayso wiilasha hogaaminaya aysan kala garanaynin waxa sharciga ah iyo waxa aan sharciga ahayn sida uu hadalku dhigay. sidoo kale xasan sheekh ayaa sheegay in sanadkii 2018 ay la kulmeen Farmaajo iyagoo ka dalbaday in aan la siyaasadeen ciidanka qaranka balse taas uusan dhagdalaq u siin sida uu sheegay. nasiib darro madaxweyne Farmaajo ciidankii siyaasadda ayuu geliyay wiilashii yaryara ma dhihi karaan waxaan sharci ma ahan laakiin waxaan la hadalnay annagu markaan dowladdan ciidamada bahdishay ay sidaas sameeyeen laakiin madaxweynaha jawaabna ma siin ayuu yiri xasan sheekh maxamuud. madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay in dadka loo adeegsaday ciidamada loo diray in ay soo dilaan oo isagu ka mid ahaa dadka lagu dulmiyay ciidanka ee lagu amray inay soo dilaan aniga ayaa ka mid ah way joogaan saraakiisha maalin ayaa la gaari doonaa la isla xisaabtami doono ka fiirsada ayaan leeyahay ayuu yiri xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dalka. xasan sheekh ayaa si qoto dheer arrinta kaga hadlay asagoo sheegay in wax laga xumaado ay tahay ciidankii waqtiga iyo sidoo kale dadaalku ku soo bixiyay in isaga loo adeegsado. markan madaxweynihii hore Hirshabelle waa nin xog ogaal ah oo awood u leh in uu qaab magangal ah u sharxo dhibaatooyinka bulsho iyo tan siyaasadeed ee haysata deegaanada iyo beelaha Soomaaliyeed. wareysi la leeyahay oo aan dhageysanay waxyaabaha uu ka hadlay ee aadka aan ula dhacnay waxaa ka mid ah qeexid iyo qaaweyn cajiib ah oo uu sameeyay sida ay reeraha Soomaaliyeed ula falgaleen nidaamka federaalka iyo kuwa wali cawashada ka qawa dhibka haysta. waxa uu sameeyay saddex xagal beeleed oo tabashada federaalka ay ku badan tahay kuwaas oo kala ah Xawaadle oo Hiiraan dega, Maryaxaan oo Gada dega iyo Dhulbahante oo Warsangeli ah Puntland dega. sababaha ay saddexdaas reerood ugu goos adeegayaan wax ku darsiga maamulada ay hadda deegaansadeen waxa uu sheegay inay yihiin dad adag wax badan aan qabsan karin inta badan loo taliya ayuu sheegay inay yihiin. Waare ayaa waxa uu sheegay in uu soo saari doono warbixino arrinta uu kaga hadlayo ayna tahay arrin cajiib ah uusan weligii ku arkin Soomaaliya dhibka iyo dhibaatada haysta. ugu dambeyn haddaan eegno taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwa Yuusuf Raage ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dhacdadii 19 Febraayo ee ciidamada dowladda ay ku rasaasayeen banaanbaxyaal ay hogaaminayeen qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo weerarkii lagu qaaday madaxweynayaashii hore. General Odwa oo wareysi dhinacyo badan taabanayay idaacadda VOA ayaa ugu horeyntii ku dooday in dhacdooyinkii 19 Febraayo ay ahaayeen waajib lagu muujiyo dowladnimada dalka ka jirta. Odwa oo muuqda mid ka gaabsanaya ka warbixinta dhacdadaasi ayaa carabka ku adkeeyay in ciidamada qaranka uu waajib ka saaran yahay ka hortagga fal kasta oo wiiqaya nabadgelyada iyo jiritaanka dowladnimada. 19 Febraayo waxaa dhacay dad ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyin ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho qayb ka mid ah in ay tageen ayay ka cadeeyeen in ay iyaga la wareegeen oo wax dowladda aysan jirin. waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga ku dhacda ama si sharci daraa waxyaabo aan laga filinayn sameeysa ayuu yiri. waa mas'uuliyadna saaran in tallaabo aan ka qaadno cid kasta oo baalmarta sharciga iyo wax kasta oo qalqalgelinaya amniga dalka iyo hadalkiisa ku soo koobay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwa Yuusuf Raage. wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa inaga intaa.